waxa ugu dambeeya hawshaas ay ku dhamaanayso maalmaha ugu soo horeeya bari ha noqoto ama bari dama ha noqotee ay mudan tahay Soomaaliya Soomaalinimadeeda iyo waxtarkeeda iyo waxqabadkeeda inay asal u tahay dib u heshiisiin midnimo Soomaalinimo iyadoo la raadiyo gogasha maanta lagu wada hadlayay iyo wada hadalka jirana kulligii uu ahaa mid Soomaali ay leedahay oo cid kale oo maanta gacan ka siinaysa ayna jirin cid isugu yeedhay ayna jirin ay ahayd Soomaali wada hadal iyadoo ay leedahay oo iyadoo wixii ka khaldan ay ku saxanayso oo iyadoo wixii la kala tabanaya ay kaga hadlayso oo iyadoo waxa ka dhaxeeya ay hoos gacmo geel jireen kor loo maydhaayo maydhanayso waxaan ugu mahad celinayaa xaqiiqatan arintaas wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka ah mudane generaal Cabdiqaadir Shacali Diini oo aan isleeyahay shaqada ugu weyn ee uu hayay bay ahayd muddadii la soo dhaafay ee uu ku mashquulay ee tii guud iyo tii gaar ahaaneedba uu isku dayay inuu midho ka dhaliyo oo ay khilaafaadka gobolkan ka jira iyo cid kastoo isaga markaa lagu riixayo inuu wax ka qabto oo uu isu keeno oo leeyahay waxaan ugu mahad celinayaa wasiirka doorkii taariikhiga ahaa iyo roolkii uu ku lahaa iyo abaabulkii muddada dheer soo jiray ee uu ka sameeyey arrinta maanta halkan guusheeda lagu gaadhay ee dib u heshiisiinta ahayd ee midho dhalka ah ee dhaxalgalka ah ee aan isleeyahay Soomaalida waxay u noqonaysaa guul taariikhi aad baan ugu mahad celinayaa waxaanan islahaan lahaa haddii dawladda federaalka wasiiradeedu ay samayn lahaayeen inta kaga aadan oo maanta inta uu wasiir Cabdiqaadir Shacali Diini uu ka sameeyey iyo inta uu juhdi ku bixiyey oo laga yaabo dawladdiisa taageerada ugu baahnaa inuuna ka helin maanta uu ku bixiyo hadduu nin waliba ku bixinayo maanta meesha uu qowl ku leeyahay ama sumcad ku leeyahay ama hadal ku leeyahay maanta wax badan oo isxaqxaqto oo jiitiito maynan lahaateene guul way noqon lahayd wax waliba wanaag buu ku dhamaan lahaa waxaan ku talin lahaa dawladda federaalka iyo wasiiradeeduba inay ku dayasho mudan tahay inta maanta wasiirka generaal Cabdiqaadir Shacali Diini uu ka qabtay halkan aan isleeyahay waa guul taariikhi aad baan wasiir kaaga mahad celinaynaa ilaahay baana shukriga iskale ilaahayna miisaankaaga xasanaadkaaga aakhiraha kuugu daro wixii aad geysatay adigoon maanta ru'yo iyo sumca iyo hal iiraa midna ayna ka ahayn odayaasha kale saaxiibadaya waxaan iyagana leeyahay aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu cabshir intuu mikrofoon kale istaago wax kale sheegi doonin aanu wada hadalay waliba intaan aad wada hadalay si tolnimo waliba aan uga mahad celinay isaga saaxiibadayda kale Maxamuud Sayid iyo Magan iyo kulligood waxa laga hadlayay inay ahayd war maxaa daninoo gudoomiyaha Cabdi Kaliil maxaa daninoo dadkeena maxaa danwa maxaa waxtarkeenu yahay see waxaynoo oo waxaan isku afgaranaynaa cid hala dulmiyo cid hala dhaco cid hala boobe ay tahay dadkeena iyo dalkeena iyo Soomaali guud ahaan maxaa dalo hatta ma ahayn waxay ka hadlayeen iyo fikirkoodu waxa ku saabsan jubooyinka iyo beel waxay ahayd Soomaaliya xagee u socotaa maxay ku gudbay xagee u gudbaysaa maxaa waxtar ah maxaa wax ka qabanaynaa seen yeela oo aan isleeyahay wada hadalka waxa ka muhiimsanaa midka qoyska iyo tabashadooda midka ay cabirayeen ee Soomaali weyn iyo danteedu maanta xagee bay tagaysaa asal oo ay taasana iyagoo xildhibaano qaran ra'iisul wasaareyaal rag soo ahaa wasiiro ay wax walba isugu jiraan inay dareenkoodu ahaa mid Soomaalinimo iyo cabir Soomaalinimo iyadoo lafteedu waxaan isleeyahay waa guul waxaan leeyahay soo dhawaada deegaankiina baad joogtaan talada Soomaaliyeed ba waxaan rajaynayaa guriga nabadda la yiraahdaa Soomaaliyan rabnaa in iyadoo cid kale caawinayn iyadoo intay ku tashato masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda ay kaga tashato meel ku gaadho waxaan isleeyahay waxaad noqonaysaan odayaashii gogasha Soomaaliyeed dhigi lahaa gurigiina baad joogtaan Soomaali isugu yeedha gogasha dhiga cid kastoo wax tabanaysa ninka maamulka isaga markaa hayay ma garto waxa isaga ka maqan iyo waxa laga tabanaya laakiin ciyaarta waxa aad u yaqaan qofka markuu banaanka ka fiirsanayo iyo wuxuu garanayaa aleelekaas haduu number 4 oo ka u dhiibi lahaa kooytoon halkaas gool ka dhalin lahaayo sidaas uu ku ciyaaray laakiin qofku markuu ku dhex jiro
waxa laga yaabaa inuu mashquul kale ku jiro marka ciyaarta markii hore banaanka aad ka taagnaydeen bal wixii aad banaanka ku soo aragteen iyo khaladaadkii idin muuqday hadda waxaan u maleeyaa inaad gudaha ka sii doontaan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan madaxda kale oo halkan joogta oo leh xildhibaano federaal tii Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka marti sharafta kale oo halkan joogta waxgaradka bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland oo halkan si fiican noogu soo dhaweeyay hawshii dib u heshiisiintana gacan weyn ka geystay oo maanta halkan xafladeedu ka bilaabatay xaflado kalena la dhigi doono haddii aysan go'asha noo dhigin na soo dhaweynin diyaar inay u yihiin na tusinin inay xal ka gaaraan arrinta khilaafaadka si nabada shaqada maanta halkan aan ku soo gabagabaynay ma aysan dhacdeen marka aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahad celinayaa marka kaleeto anaka waxaan ka shaqaynaynay dib u heshiisiin sida madaxweynuhu yirina dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxay u baahan tahay dib u heshiisiin in loo sameeyo dib u heshiisiintaas waxay saldhig u tahay runtii anigu waxaan ka ahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mas'uul waxaan ka ahay difaaca dalka hooyana lama samayn karo dadkiisu haddaysan heshiisayn lama samayn karo waxaa mas'uuliyadu ka naga saaran tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka amniga inaan dhisno ciidanka amniga iyo ciidanka Soomaaliyeed si loo dhisana waa in dadkiisu heshiis yihiin ciidanka markaas la isku dhafi karaa markaas la qalabayn karaa markaas wax loo qaban karaa laakiin ciidan dadkiisu uusan heshiis ahayn waxba lagama qaban karo mana la dhisi karo dad badan baa waxa iska dhahan ciidanka ha la dhiso xagga ha la dhiso su'aasha ay isweydiinayna waxa weeye dadkaagu heshiis ma yahay shacabkaagu heshiis ma yahay markaad shacabkaaga heshiisiiso ayaad ciidankaagana dhisan doontaa hadda ka hor waa isku daynay waxaan ka bilownay dib u heshiisiintaas magaalada Gurceel oo heshiis aan ka sameynay nabadeed taas oo aan ku guuleysanay dad shacab ah oo nabad darro awgeed magaalada Gurceel uga cararay ama uga barakacay inay si nabada ku soo noqdaan ciidankana aanu ku gubaabino inay dalkooda iyo dadkooda u shaqeeyaan shacabkoodana inay u shaqeeyaan nabadgelyadiisana ka shaqeeyaan marka waxaan leenahay in la yiraahdo fadhi ku dirir ciidanka saha loo dhiso waxa la sameeyo waxa ka horeysa shacabka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxa ila tahay inta iska dhaaftid maxaan qabanaa waxaasan qabanayaa waxaasan fulinayaa nin walba ha ku tashado dib u heshiisiinta ka soo qayb galo ciidanka dhisidiisana ka soo qayb galo waxaan aad iyo aad runtii u amaanayaa madaxweynaha iyo maamulkiisaba sida runtii ay halkan ammaankana ugu adkeeyeen diyaarna ugu yihiin inay ummadda Soomaaliyeed ugu adeegaan wax alla waxa ay rabaan haday rabaan inay halkan ku shiraan haday rabaan meel wax in lala qabto inay talo la siiyo aad iyo aad baan sida uu diyaarka yahay aad baan ugu amaanayaa waxaan kaloo rabaa inaan halkan aad iyo aad ugu mahad celiyo dadkii igala soo qayb qaatay oo runtii laftigooda isku jabiyay samray tanaajul badan sameeyay waxyaabo badan isku dayay inuusan shirkaanu fashilmin aad iyo aad baan ayagana ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ilaahay ayna ka jasiyo adinka iyo intii kale nagu taageertayba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله Soomaaliya ha noolaato